بسم الله الرحمن الرحيم حلقدان waa xalqadii shanaad duruusteena ku saabsanayd acmaasha xajka halkaas waxaan rabnaa inaan ku xajisiino hadii qofkii magaalada Maka galay dabcan shirkadaha dadka xajisiya waxay sameeyaan dadka siday u soo wadaan guriyihii ay ugu tala galeen bay ku dejiyaan baas male qofku gurigii loogu tala galay inuu dego baas iyo dhibaato iyaduna mare hadii uu mar labaad intuu qubayso isqaboojiyo dharkiisii hadana labisto cadcada markaasi ka bacdi baa waxa loo kaxeeyaa xagga iyo beedka Ilaahay xaramkii Kacbada marka ugu horeeya oo aad masjidka xurmada la galayso masjidullaahi al-xaraam waxa la rabaa inaad hormariso lugtaada midigta adigoo oranaya اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك الباب ذا كلاته أردن وحائق حصوصنا مكة مركي دادكو أي عمريسانيان أما أي حجينيان خاصة حجك الباب ذا كلاته أردن والحراء الباب كو آدن الباب كاليراد ملك عبد العزيز الباب كاسكرية أيال وفرة مركا الباب كاوحا كقلا ضد لبا قيدو عد ونسيتو عمريساني sababtuna waxay tahay qofku markii uu galo beedka Ilaahay waxa uu ka bilaabayaa dawaafka Kacbada Hajar al-Aswadka inaad ku toosto ayuu albaabkaasi ku aadan yahay almuhim beedka Ilaahay oo xurmada leh baad galaysaa masjidullaahi al-xaraam ama masjidul xaraam marka gashana midigta ayaad ku bilaabaysaa lugta دعاء وادخرسانيسا اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك شيء أقول عمرة هذا أتكب بلا بيسوي حوي كعبة إنا دوافته تدوقر إنا بلو تدوافته وحد كبلا بيسا دواف كاجا ماشي يكو أدنتهي أفرت ركن كالليراد حجر الأسود الله أكبر بادورانيسا هدي أي مالين تهي حجر الأسود كا وحا كصوبحيسا مطلال مذب له أو أنت وحجر الأسود كيهي إلا إيماشا وقدم ما يسأو ضدك كدوافي مسجد كا آذركيسو مركي آدمريسو هدي هبين تهينا وحجرتا غير عقارة أو كو آدن توس ماشي اللي حجر الأسود كا halka markaad marayso ayaad waxa dooranaysaa Allahu akbar ama bismillah Allahu akbar adigoo gacanta taagaya kuna aadinaya xajar al-aswadka hadii aad heli karto oo beedku uu faadi yahay oo banaan yahay xajar al-aswadka waa dhukanaysa hadii aad heli karto xajar al-aswadka gacantaad ku taabanaysa waa dhunkanaysa haddii aad heli karto ul ama matoobo baad ku taabanaysaa intaba waa ay ku suurtagal tahay almuhim xajar al-aswadka aad ku aado waxaad oranaysaa bismillaahi Allahu akbar waadna ka dhaqaaqaysaa wareegaagii baad soo bilaabaysaa waxaad ogaataa beedka Ilaahay markii aad dawaafayso waa sida salaada oo kaleeto نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من حديث عبد الله بن عباس وحير الطواف في البيت صلاة ضواف كلا ضواف بيتك إلهي دحليسا واسد الصلاة أوكلاته إلا أن الله أباح فيه الكلام لكن هاته الصلاة لكن إلهي بيتك مركي للضواف يا ربي وحبني وضدك وقلاذ إنه الكرام haddee markii ay dawaafkaasi noqoto salaad waxayna ka baahan tahay dawaafku arrimaha kan koow niyo qofku inuu niyoodo dawaafka markuu bilaabayo xajar al-aswadka labo haddii dawaafka la dawaafaya salaad ay noqotay waxayna ka baahan tahay dahaara qofku inuu xadath al-akbar iyo xadath al-asghar labadaba uu ka koreeyo oo qofkii daahir uu yahay waasana qabo waxa kale taayadana muhiima oo u baahan yahay dawaafkii maadaama salaadu yahay awradi oo la asturo dadku waxay sameeyaan
raggu markii ay xiranayaan labada qayd kuwa waxaad arkaysaa xuduntoodii iyo baridoodii iyo dabadoodii iyo oo ay muuqanayso qofkaasi waa adag tahay siday uga ansaxdo dawaafkiisi dumarka waxay asal ku yihiin in ay yihiin gabdho asturan waxaad arkaysaa kuwo gacmahoodii ay qaawan yihiin waxaad arkaysaa kuwo timahoodii ay qaawan yihiin waxaad arkaysaa kuwo cabaaryahoodii ay qaawan yihiin waa waxyaabaha khaladaadka ay dadku sameeyaan markay dawaafayaan afar waxa kale oo dawaafku inuu ka baahan yahay ragga marka loo fiiriyo wax la yiraahdo al-idibaac go'i kor oo uu sitay oo uu huwanaa wuxuu samaynayaa go'a kale barkiisiibuu wuxuu gelinayaa kilkisha midigta darafka xagga hore soo jirana wuxuu ka soo tuurayaa darafka garabka bidixda darafkii dameetana wuxuu soo huwinayaa darafka gacanta bidixda dusheeda xaaladda aan tilmaamay waxa la yiraahdaa idibaac garabka midigtu waa qaawan yahay go'iisi wuxuu marayaa kilkishiisa iyo xuduudiisa hoosteeda haddana labadiisii daraf wuxuu ka tuuray garabkiisa bidixda habkaas ayuu samaynayaa xaajigu khaasatan haddii uu nin yahay idibaacaas markaasuu markaa loo suneeyaa haddii masjidku bannaan yahay sida badan hadeer masaajidku maba bannaana oo intaasoo malyan oo qofaa imaanaysa laakiin haddii uu bannaan yahay oo aad ruclayn karto saddexda shawd ama saddexda wareegoo hore qofku waa uu rucleeyaa waa saddexda shawd oo ugu horeeya afarta dameetana caadi buu u soconayaa ruclaynta waxaa la yidhaahdaa surcatu lmashi wa muqaarabati alkhutaa qofku socodkiisii inaad moodayso inuu degdegayo lugahana tallaabada inuu isu dhoweeyo sidaas buu samaynayaa saddexda shawdo hore waaba hadduu heli karo waxa kaleeto oo u furan qofku markii uu dawaafayo kacbada quraan inuu akhriyo waxa kaleeto u furan dikri ilaahay waxa u furan tasbiixda waxa u furan taxmiidda waxa u furan tahliisha waxa u furan qowlka laa xawla walaa quwata illa billah wixii uu doono oo dikri ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa uu qofku dhahaya waxa kaleeto lix oo ay u baahan tahay markii dawaafka aynu samaynayno kacbada markii aad xajar aswadka ka timaado oo aad timaado rukunka koowaad oo haddana aad soo wareegto timaado rukunka labaad labada rukni waxa la yiraahdaa shaamiyeyn ama shimaaliyeyn labadaasi xaggaas bay xigaan waa dhinaca shaam rukunka saddexaad markaad ku aadan tahay waana rukunka rukun ahaan u xiga xajar aswadka labada ruknina waxa la yiraahdaa yamaaniyeyn xaggaas bay xigaan marka qofku markuu ku soo aado xajar aswadkii baa ka tagtay rukniga koowaad dhaaf rukniga labaad oo aad kacbada la soo wareegayso saddexaad dhaaf rukniga saddexaad oo aad ku soo wareegayso oo ku aadan markaad u socoto xajar aswadka waxaa la suneeyaa intaa u dhaxaysa ruknigaas yamaaniga ilaa iyo rukniga xajar aswadka dhexdooda inaad tiraahdo اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار انتاس udhaxaysana waa in ilaa iyo 6 mitir meelaha aslan inta 6 mitir ama 4 mitir dhexdooda marayso waxa laga rabaa inaad tiraado ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حجر الأسود كباتمد waxa ku dhamaaday hal wareeg sidii sileeg marka xajar aswadka ku aadan tahay bismillaahi allahu akbar hadana wareeg baad galaysaa labo wareeg saddexaad baad galaysaa saddex wareeg afraad baad galaysaa afar wareeg shanaad baad galaysaa shan wareeg lixaad baad galaysaa lix wareeg toddobaad baad galaysaa toddoba wax dikriya oo ku soo arooray marka la dawaafayo beydka ilaahay iyo kacbada ma jirto aan ka ahayn rukniga yamaaniga iyo xajar aswadka inta u dhaxaysa inaad tiraado
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار markii ay ku dhamaato dawaafkaas waxa dhici karta dadka qaarkii markii ay dawaafayaan inay shakiyaan oo yiraahdaan booyo ma lix baa dawaaftay mise toddobaad dawaaftay markaas oo kale xaajiga ama qofka camaasha xajka ama umrada gudanaya waxa uu heri karayaa meeshii uu shakiyay oo yiri booyo ma lix mise toddoba waxaad ku dhistaa niyadaada lix inaad dawaaftay dawaaf kale talaimow toddobadii buuxisi shakiga aad u saarto markii dawaafku sidaa u dhamaado qofku waxa la rabaa inuu ku tukado maqaamu ibraahimka gadaalkiisa isagoo maqaamu ibraahimku ka soo horeeyo kacbaduna ay ka soo horeyso inuu ku tukado laba ragcadood xagga markuu hinqanayana waa inuu akhriyaa wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallan aayadda sida nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu sameyn jiray haddii marka labada ragcadood aad ku tukanayso maqaam ibraahimka gadaalkiisa aad ku tukato oo hortaada aad iska dhigto wariba maanta waxaan qiyaasiyaa inaysan ku suurtageli karin intaasoo milyan oo qof ayaa dawaafaya meesha oo dhan waa ay buuxdaa suurtagal kuma noqon karto haddii aad tiraaxataa waa ku sunaysanaya waaba lagu dardaraya waxa tukatayna garan maysid labada ragcadood oo sunnada dawaafka meel aliyaalay meeshii aad doonto masaajidka kamid aad ku tukan kartaa qul ragcadda koowaad waxaad akhrinaysaa qul yaa ayuhal kaafiruun ragcadda labaadna waxaad akhrinaysaa qul huwa allahu ahad allahu samad sidaasaa u sunnaa ibn umar radiyallahu ta'ala anhu umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu wuxuu sameyn jiray markuu umradiisa samaynayo labadiisa ragcadood xataa wuxuu ku sii tukan jiray meel xaramka ka mid ah oo laakiin ka fog yar waxa la oran jiray bidituwa buu ku sii tukan jiray marka meeshu marba haday xaram tahay labada ragcadood waa ay kugu suurtagelaysaa labada ragcadood markii aad tukato istaabka kugu xiga oo aad samaynayso waxa weeye inaad cabto biyihii zamzamka bifadli illaahi ta'ala maanta masjidka ceelka biiru zamzam la yiraahdo biyihiisu waa mutawaffir meel walbo aad istaagto laakiin meel u dhaxaysa meeshaas uu qofku ka tagayo maqaamu ibraahimka iyo inta u dhaxaysa sacyiga iyo buurta bayna safa wal marwa dhaxdooda ayaa dawladda mamlakada Carabiga Sacuudiga waxay dhigtay talaagado waaweyn oo koobab aad iyo aad u badan leh oo haddana ay ka socdaan biyihii koobabkan balastiga ah ayaa yaala koob balastiga soo qabsanaysa waad ku cabaysaa biyahaas marka samsamka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sidoo sheegay حديث ابن ماجه إمام الباني لبضوا أي صارين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه نبي محمد حرماء زمزم لما شرب له بيها زمزم كالليرادو وحلو عبويه وحال ياري وحي نياد هذا كجرة وأن نياد هذا قشته بإلهي بيها زمزم ككوسينيا هدا جرنتها على عافماد بإلهي ككوسينيا هدا حفظ درنتها oo aad rabto xifdigaagi inuu fiicnaado xifdi fiican baa Ilaahay ku siinaya hadaa Ilaahay weydiisanayso umurtaada diinta ama adduunyada in Ilaahay isku aadiyo oo aad sidaa u cabto Ilaahay waa ku siinaya rasuulku xirmaa zamzam lima shuriba lah hadithku waa sahih sidoo kale hadith Imam Albani uu wariyay min hadith Abdullah ibn Abbas وصحيح الجامع وكوري نبي محمد وحري إنها طعام طعم بيها زمزمكو وعنطو لعنه إيه وشفاء سقم عبد لو عاف ماذا لبضب مركا قفكي واوتهي هدي أي عنطو النقطو إيه هدي أي شرابي عاف ماذا النقطو انتبه قفكو مركو بيها عبه وأبحيا وحو آذيا حقا إيه الصفا buurta la yiraahdo buurta safar la yiraahdo
waa meel xoogaa yar kor saaranoo maanta buurtii ma arki kartid marmar iyo mutuleel baa inta lagala daalay laakiin waxaad dareemi kartaa inaad dalcad iyo meel kore aad fananayso oo fuulayso halkaasi marka aad dalcadda sii fuulayso ayaa waxaad odhanaysaa ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah waxaadse ka horraysiinaysaa intaadan ducadan odhan sidii nebi maxamed odhan jiray abda'u bimaa bada'a allaahu bihi waxaan ku bilaabayaa shaygii ilaahay ku bilaabay ama xadiid kale nabda'u bimaa bada'a allaahu bihi waxaanu ku bilaabaynaa shaygii ilaahay uu ku bilaabay ama waxaad odhanaysaa xadiid kale ibda'uu bimaa bada'a allaahu bihi dadka cumraysanayow ku bilaaba ama aniguba aan ku bilaabayaa kii ilaahay uu ku bilaabay axaadiidtaasoo dhan waa saxiix markuu qowlkaa yidhaahdo ayuu buurtii sii fananayaa wuxuuna akhrinayaa aayaddatan ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima waman tatawaca khayran faina allaha shaakirun caliim safa iyo marwa waxay ka mid yihiin calaamadaha iyo astaanta ilaahay qofkii haddaba xajinaya beytka ilaahay ama qofkii cumraysanaya falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa wax dembiye iyo culaysi ma jiro inuu labadaa buurood dhexdooda dawaafo waman tatawaca khayran qofkii tatawuc iyo khayr dheeriya la yimaadana faina allaha shaakirun caliim ilaahay waa ilaah shukrin badan haddana cilmi badan buurtaa markii aad fuusho fiqideeda kore baa la rabaa inaad fuusho markaa fiqideeda kore fuusho sidii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam sameeyey waxaad qaabilaysaa kacbada kacbadu dhismaha la dhisay ee xaramka iyo beydka ilaahay darteed kuma muuqanayso laakiin buurtan safa markaa fiqideeda kore istaagto kacbadii waa ay ku muuqanaysaa kacbada xaggeeda aad u jeedsanaysaa ilaahay baad subxaanahu wa tacaala mahadinaysaa ilaahay baa weynaynaysaa 3 goor labadaada gacmood kor baa u qaadaysaa sida qofka ilaahay markuu baryayo oo kaleeto waxaadna ku ducaysanaysaa wixii nebi maxamed ka soo arooray sala allahu calayh wasalam nebi maxamed waxaa ka soo arooray fiqda ugu koraysaa buurta safa markii uu fuulay isagoo u jeeda xagga iyo kacbadii iyo beydkii ilaahay wuxuu rasuulku odhanayay laa ilaaha ila allah waxdah laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir talbiyadii baynu arkaynay haddeer buurtii safaa baynu saarannahay addoonku waxyaabaha ilaahay ugu dhowaanayo waa tawxiid iyo ikhlaas iyo iimaan ilaahay subxaanah ducadan buu akhrinayaa laa ilaaha ila allah waxdah laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir wuxuu kaleeto akhrinayaa laa ilaaha ila allah waxdah anjaza wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah ayadana waa akhrinayaa 3 goor buu ku celcelinayaa mar walba oo ducadaa u akhriyay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu iyo laa ilaaha ila allah waxdahu waanjaza cabdahu waa ducaysanayaa duco dheer buu qofkaasi ducaysanayaa nebi maxamedna sala allahu calayh wasalam waa uu ducaysan jiray markaasuu haddana mar labaad wuxuu akhrinayaa laa ilaaha ila allah waxdah لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أيضا مركي وسيدة آخريو دعاء دير بو دعاء سنة